laamaha ammaanka dawladda Kenya ayaa bilaabay qorshe ay ku baadigoobayaan sargaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaasoo horay dawladda Soomaaliya ay u sheegtay in gacanta ay ku dhigtay. ninkan ay doonayaan booliska Kenya waxaan saloogayn sababta uu uga baxsaday gacanta laamaha ammaanka Soomaaliya. war ka soo baxay laamaha ammaanka Kenya ayaa lagu sheegay in sargaalkan oo lagu magacaabo Cabdiwaaxid Ciise Khaliif Cabdi Ciise Tarabuun uu dalka Kenya soo galay 24kii bishan aynu ku jirno, waxaana bulshada Kenyaanka ay ugu baaqeen in si dhow ay la socdaan xogta iyo macluumaadka sargaalkan shabaabka isla markaana ay la wadaagaan xarumaha booliska wadanka. warka ka soo yeeray laamaha ammaanka dawladda Kenya ee lagu baadigoobayo sargaalkan magaciisa lagu sheegay Cabdiwaaxid Ciise Khaliif Ciise Tarabuun oo ka tirsan Al-Shabaab waxaa sanadkii 2017 dawladda Soomaaliya ay sheegtay in gacanta ay ku dhigtay madaxii amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir sidii xilligaasi uu warbaahinta u sheegay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed in ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sida waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo. waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun. waa alla mahdi alla ugu mahadcelinayna marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiray waa ninkii kaliya dhihi jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeeyay dhibi jiray. marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa ugu hambalyeena arintaas. warbixin ka soo baxday booliska Kenya ayaa lagu sheegay in sargaalkan laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Muqdisho sabab aan la aqoonin, isla markaana laamaha ammaanka Soomaaliya ay su'aalo ku weydiiyeen gagida diyaaradaha Muqdisho ka hor inta uusan u soo dhoofin dalkani Kenya sida uu daabacay wargeyska The Standard oo ka soo baxa magaalada Nairobi. afhayeenka booliska Kenya Charles Awino maruu ka hadlayay baadigoobka xubintan sare ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaa shacabka Kenyaanka uu ku dhiirigeliyay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka isla markaana ay ka taxadaraan goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan. hase yeeshee booliska Kenya waxa ay su'aalo iska weydiinayaan sababta laamaha ammaanka Soomaaliya ay ula soo wadaagi waayeen xogta ku saabsan sargaalkan shabaabka. Sade Cabdi Tahliil, Universal TV, Nairobi.